ilaahay baa keligii mahad leh. dhalinyarada waayeelka waxgaradka haweenka siyaasiyiinta salaadiinta iyo cid kastoo munaasabadan ka soo qayb gashay aad iyo aad ayaanu salaamayaa. waxaa caawayay farxada oo hortayda ka soo muuqda abtigay maxamuud maxamed nuur faahiye liibaan oo korintayda iyo barbaarintayda qayb weyn ku lahaa. intaa markaan ka imaado hoolkan waxaa quruxda u yeelayaa maaha kuraasta dhex taala iyo laydharkan wada walwalayay korkiina suran ee waxa macnaha uu sameynaya waa idinka sidaa ii soo sharafteen Allah idin sharfa. maadaama culayska ugu weyn inuu hor yaalla calooshaynu inagu hayso oo 24 saacadood ee habeenkii maalinta ku jirta 3 goor ka mid ah calooshaynu tahay calool baahan waxay u baahan tahayna cid kale aan uga sii baahannahay. waa muhiim inaynu xaqiiqda istireensiino maasaduna waa baraaru. intaanan u gelin waxooga hadal aan ka horreysiinaya maalintii dhaweyd ujeedadan ku daadegaya ee qaska siyaasiga ah Itoobiya ka dhacay ragga inta qeysha xagga qaadkay ka dareemeen dumarkuse baqyada iyo guryaha ayay ka dareemeen kadib markii magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale xabad basala iyo xabad tamaandha ah laga waayay. dadiyowga dunyada ku nool ee kala afka iyo sirka duwan ee kala muuqa iyo midabka duwan ee kala dalalka iyo diimaha duwan badankoodu waxay isticmaalaan isla mar ahaantaana adduunyada inteeda kale u dhoofiyaan huwa ahaan iyo dawa ahaan iyo cunto ahaanba wixii dhulka ka soo baxay beeraha la xidhiidha iyo wixii ay dhaqdaan ee xoolaha la xidhiidha. wax kasta oo aadmigu warshadeeyo waxay ka yimaadaan beer iyo xoolo iyo bado. wixii soo raacaana waa macdan iyo shidaal. qabashada biyaha roobka iyo ka faa'iideysiga qorraxda iyo dabayshuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha aqoontu suuro gelisay ee dadyowga adduunyadu ay ku kala horumarsan yihiin. ma jirto ummadu ilaahay cadeed u siiyey oo carra ay wax ka bixi karaan u siiyey oo dhulkooda sanadkii 2 xilli ama 1 xilli roobku ka da'o oo aan waxba beerin waxbana la soo bixin inaga mooye. mana jirto ummad wax kasta ay nolosha u isticmaalaan loo soo waarido oo dadyowga tabcay ee dadaalay ee wax soo saar kale oo ah saylad iyo suuq ay ku soo tamaan iyaguna adduunyada baahiyo kaashoon u gudbiya inaga mooye. runtuna fanta maahe sidan liidatay aynu nahay ee aad ka liidatay baahan ee nolosheeda inaan ku filayn iska daa inaynu ku filaanee aynaan kala garanayn waxaynu haysanay iyo waxaan haysan ee waxaynu haysan ay ku qatanna aynu ka qatannahay umaynaan dhalan innagaas iska dhignay. mana nihin ummad uu ilaahay u abuuray si ka hooseysa sidoo ummadaha kale u abuuray. xalkeenuna wuxuu ku jiraa inaynu fahanno halka aynu taaganahay iyo waxay naga qaldan. inta markaynu isla garanno ayaynu ka fikiri karnaa sidaynu uga bixi lahayn. dadkeenii hore iyo awowyaasheen waxay ahaayeen dad si karaamo leh u nool kuna nool hab nolol dhamaystiran oo iyagu ay samaysteen oo ay hagaajisteen oo ay aqligooda ku keeneen oo aanay jirin cid ay daba fadhiistaan. waxay ahaayeen dad leh farsamo iyo karti ay ku meel mariyaan agab kastoo noloshooda laga maarmaan u ah sida huga hoyga maacuunka agabka dagaalka iyo wixii la halmaalaa dhirta noocyadooda kala duwan yaqaana sida iskugu daweeyaan xoolahoodana ugu daweeyaan. haddana dadkeena hore markaynu ku hadlano waxaynu ku tilmaanaa dad aqoon ahaan hooseeyay wax dibad uga iman jireen may jirin. innagana wax kasta dibad bay nooga yimaadaan kolay yarbad ku tahay ma innaga hooseyna maysa iyaga. maanta aynu ka aqoon badannahay ka dhaqaale badannahay ka tiro badannahay. aqoonta iyo dhaqaalaha iyo tiradaas maxayna tareen
maxay nagu soo kordhiyeen maxay nagu soo biiriyeen kaba kaalay inaynu isbarbar dhigno awoowayaasheen gaadhiba maynee adduunyada kalena hadalkeedaba daa higsanba maynee bal waxaad u fiirsataan siday u nool yihiin xayawaanku cibraha ku jirteen miyaa weli aragteen aboor dundumada uu dhisanayo laga caawinayo mase maqasheen shimbirtu buulka iyo ilixidhka quruxda badan ee ay samaysato cid ka taageeraysa mid kasta halkuu galo isagaa samaysta xayawaan kastoo aragteen halkuu galo isagaa samaysta noloshiisoo dhanna isagaa iskaga filan dugaag ama xayawaan kale noloshiisa u daba fadhiya innagu maxaynu iskaga filannahay yaase garanaya shaarka uu xidhan yahay moobilka uu sito gaadhiga uu wato qaab loo sameeyey si loo sameeyey iyo wax laga sameeyey waynu isticmaali naqaanaa inaynu isticmaalayaal wanaagsan noqonno waxa ka wanaagsan oo ka sharaf iyo karaamo iyo sumcad iyo saamayn badan inaynu noqonno samaystayaal wanaagsan maxaynu leenahay maxaynu ku faani karnaa waxba laga yaabaa in badhkii dhahaan xoolaha nool war xoolaha ilaahay baa abuurtay oo leh sidaynu u cuni naqaan uma dhaqan naqaano oo wanagaa beerihii ka wada oodannay dhulkeennana maanta meel cag la saaro oo bannaan oo ilaahi lahaa leeyahoo loo daayay ma jirtee meel kasta cid baa sheeganayso waa buurtayadii waa bannaankayagii ku leh haba la sheegto oo inaguba ilaahay dhulkaynagu abuuro o inuugu talagalay balse ma sidan buu ugu talagalay inaynu iska dul fadhino oo sheeganno mala haddii nebi aadan dib loo soo saari lahaa marka laga tago daarahan yaraan dhisannay miyiyadan iyo dhulkeenna adduunyada intaa leeg halkeennu garan lahaaba laga yaabaa dhulkan iyo beerahan laysku wada haysto maxaa ka soo baxaa xoolihii daaqi lahaa maxaa loogu diidaa maxaa si dadkii degi lahaa looga manaca haba ilaashado kan ilaashadani muxuu ka ilaashanayaa haddii maalinta etoobiya wax ka dhacan xabad tamaandha aanu nagaga fillayn suutaa macnaheedu ma aha nin ilaalinaya oo gaadh ka haya oo u dhimanaya waxaanu faa'iidada fahamsanayn war siday dhibcaha roobka iskugu egyihiin ama shalay hadda aan ama sanadkii hore hadda aane sida ay dhibcaha roobka iskugu egyihiin ayay xaaladaha taagan iyo kuwa tegayna iskugu egyihiin matalan abaar markuu soo martay oo isoo gurmadaay isoo caawiyaay isoo gaadhaya aad kaga jawaabtay hadday mar labaad kugu soo noqoto adigoon sidii hore si ka duwan uga diyaargaloobin ama aan u wajihin waxay la mid tuun dab markuu gubay oo mar kale aa ku gubanayso maalina dadad baynu ka cabannaa maalina abaaraynu ka cabannaa labada jeerba waynoo cabasho cabashadaa maxaynu ka barannaa mushkiladahana xalka dhalaa mushkiladaha ayaa xalka dhalaa ha fikirka maskaxda ee ugu sarraysay qofkuna wuxuu ka curtaa ama ka unkamaa dhibaatooyinka iyo culaysyada markaa ku gadaamanee hor yaalla waana sababta adduunyada aan waxba ugu soo kordhin qof raaxaysanaya o dheregsayn qof gaajoonaya mooyaane inankeenna maanta jaamiciga ah ee wax bartay kuna bartay xaalad adagna ku soo koray waxaan hab fikirkiisii nolosha mujtamaciisa wax uga bedeli weyday ma hal la'aanba mise waa hal abuur la'aan su-aashaa jawaabteeda idinkaan idiin daynaya war ummad baynu nahay war dad baynu nahay war dal baynu nahay ilaahay ku galladay dhul khayraad oo dhan koobsaday inaynu dhulkeennii ku dhex garbaduubnaano isagoo dihin dadkeennuna badankooda noqdaan qaadaama dhargelayaal dhibanayaal u ah danta iyo duruuftu waxay muujinaysaa ama caddaynaysaa isku geynta awoodaha aqliga iyo cilmiga leh inaynaan weli ka faa'iidaysan ceebna ma aha bini aadamku inuu ka qatanaado waxaanu haysan una heli karin waxaase ceeba inuu ka qatanaado wax ilaahay ku galladay xoolaynu leenahay oo dhaqannaa oo dhoofinnaa haddana hilib iyo beer qaydheen
iyo caano karaatoon ku jira inoo soo dega neefka dalkeenna gudihiisa lagu qalana haraggiisa waxaa ku xisaabtama warshadaha maaska soo saara ee ku yaalla China iyo dalalka kale oo intii caantayn laynagaga iibsado ayaa dib laynagu soo dhoofiyaa haraggii neefkeenna oo laga soo farsameeyay Sooman iyo kabo iyo shandado bala markale ganacsadaheennu isma ilaahu warshadeera waxaan farsamaysa keena Sooman iyo kabo la soo rad mooyaane milix baynu leenahay milix baa laynoo keenaa bad baynu leenahay oo kalluun baa laynoo keenaa sibir baynu leenahay oo sibir baa laynoo keenaa haddaan sibirka dul istaago sidan ka akhriyay buugga tirakoobka badeecadaha ee wasaaradda maaliyaddu soo saartay sanadkii 2018 maarage waxa dalkeena sanadkaas soo galay sibir tiradiisu dhan tahay 6 milyan oo kiish suuqyadeena waxa laga siiyay $6 iyo bar ilaa $6 marka $6 lagu dhufto 6 milyan oo kiish waa 36 milyan oo dollar war in hal item oo kaliya tii lacagta inta leeg inaga baxdaa waxay muujinaysaa nooca ummadeed ee aynu nahay maadaama dalkeenu ka mid yahay wadamada qaniga ku ah qaaradda Afrikaba chipsinka iyo sibirka oo buurtii sibirka ahayd iyo dekadii laga dhoofinayay isbarbar yaalaan haddaynu warshada sibirka kicinno maxaynu ka faa'iideynaa waxaynu ka faa'iideynaa in dadkeena danyarta ay sibir jaban helaan in askarteena iyo macallimiinteena ay helaan guryo iyagu nool yihiin way ku nool yihiin way ku dhaqan yihiin way ku dhisan yihiin waxaynu ka faa'iideynaa inaga laftirkeenu inaan wax soo saarno oon dhoofino harabuur la'aanta iyo curin la'aanta iyo wax soo saar la'aanta dalkeena ka jirta waxa qayb ka ah siyaasadda qarankeena oo aan weli kala saarin waxaynu u baahannahay iyo waxaynaan u baahnayn haddaad iminka baabuur leena ceel bardaale ama dila ama allay baday aad ka kaxayso istaa Itoobiya gali askariga ugu sokeeya xariga jooga wuxuu ku leeyahay baabuurka liintahay dalkayga ma galayo isagoo baabuur baradhe sida dalkiisa ka soo baxay dalkaaga soo galayo taa macnaheedu ma aha in askarigaas iska sanifay oo iska diiday baabuurkaaga liinta ah balse siyaasadda qaranka Itoobiya diiday waayo dal kasta wuxuu leeyahay siyaasad qaran oo lagu hago lagu dhiso oo lagu dhaqo isla mar ahaantaana lagu ilaaliyo guud ahaan danaha guud ee ummadda sidoo kale siyaasadda qaranku waxay ka hortagtaa wax kasta oo dib u keenaya caafimaadka dadka iyo xoolaha dhaqaalaha dalka beeraha iyo wax soo saarka dawladnimada oo la wanaajistaana waa horumarka oo la wanaajistay waxaynu nahay umma dadaalkeedu dhani ku baxay wax cusub oo wadan cusub soo saaray waxa ma noqoto shaygan waa Turkish iyo waa Thailandis iyo waa Talyaani waxaan maranaa in meheradeen aynu ku qorano magaalooyin aynaan inagu lahayn inta badan waxaan ka sheekaynaa dal yar oo curdinaynu nahay oo soo koray warwaa su'aal ma imika la abuuray oo bini aadam imika la soo saaro imika la sameeyay baynu nahay innaga iyo ingiriiskii doomaha wati miyayna wada joogin dhulka danta gaarkaaba curdin lagama noqday ta guud maxaa curdin ka dhigay dadkeena waxa ku jiray dad farsamo iyo xirfad sare lahaa oo inoo sameeyay jiray midiyaha maxaadada iyo kabaha shaqadii ay mudnayd inaynu ku amaano kuma inaan amaanina waynu ku fogeyno waynu ku faqooqnay haddana hawshii hayeen ayaa niman ganacsato lacagteena dibadda iskala jecel wixii ay sameeyeen wixii dulligo dalkii keen waxaynu ku qanacsanahay run ahaantii kaalmo shisheeye waxaynu u kala barotanaa oo u kala badinaa dhowrto shisheeye warunta markaan isku sheegno waxaan qaybsanaa maana dhowrto shisheeye ahayn ubadkeeni waxa talaalaya reer galbeed الحقيقة شريعة دبل كتلالية حوله إن الرجال بيت بتلالية ورهير كاينو قارنا إنك حوله إن سوس كم الله تلالا مياني موجيني
inaynaa waxba doonayn. maansada waan gelayaa in nin odaya ayaa gabadh caashaqay, ninkuna waxa ahaa nin geel badan leh. gabadha waa caashaqay waxaad gabadh gurran. dhaqan ahaanna berigii hore gabadha gurran waxaa loo arkayay inay diga kulushahay oo ay raad kulushahay. kadibna waxaa lagu yidhi waar adigan buuxee iska daa gabadha. may buu yidhi. maalintii dambe markii uu guursaday ayaa culsuu duulayoo geeliibu xaggaa ka soo galay. gabadhiiyo xanteeda ogeydba ku muusan nooday. warkaka wuu soo rogo waayo. wuxuu yidhi waxay odhan adoo arkayaa geelaagii la qaaday. markaasuu ku yidhi naagurayoy geela waxba kaama saare ha iga saari. oo macnaheedu yahay hadeer aniguba inaad raad kulushahay kugu dhaliili maaye aniga ha igu dhaliilin deena yar baqday. marka horta isma dhaliilanno ismana eedaynanno laakiin waynu isbaraarujinaynaa. waxaan doonayaa maansadan in aan dul maro. maansadu wax soo saarkay ka hadlaysa. waxay la hadlaysaa siyaasiyiinta, waxay la hadlaysaa ganacsatada, waxay la hadlaysaa salaadiinta, waxay la hadlaysaa aqoon-yahanka kale ee dalka. cid kasta oo maansadu dhaliil u soo jeedisaa macnaheedu maaha in xasan dhuxul u soo jeediye waa dareenka bulshada in ogahay. bulsho qaniyahoo baahan, biyo haysatoo ooman, beera qodato oon maarmin, xoolo badan lahoo caydha, bad lahoon kalluun dheefsan, berrigeeda dihindhaadi, shidaalkeedu buux dhaafay, bilaalana ka soo saaran, buuradda haba hoos joogtaa, gaajana bastee taagan, waa sida bahdeennaas, allow baydadorodkeeda, iyo balanbalguurkeeda, sahanliyi boqoolkeeda, iyo boholo jiidhkeeda, bancidlaa kufuruddeeda, iyo baraxdayowgeeda, intuu baajo socodkeeda, yaa nageeye bixiddeeda, u bidhaasho libinteeda, burjigiyo awooddeeda, bulshadayda garansiiya. intay buuqalooskiisa bacad ugu harraadaysay, intay beel difaaceeda bunduqa u cabbaynaysay, intay booli doondoonka balloodh kala qorshaynaysay, inta ay bagaash xoog leh bada uga tallaabaysay, saliidaha bijin yaalla ku beddelasay cuudkeeda, saxaraha rag baa baaday, tacab geliyey oo beeray, dhulka barafku jiifjiifo nin leh baa barwaaqaystay. adna baladka khayraadka iyo ciidda barakaysan tiyoo eebba kugu beeray, miyaa baaqa garan weyday mise garashadaa baaba? miyaan talaba kuu biirin beri hore lagaa guuriye dib u dhaca haddaad baastay, iyo boodhka kiciwaaga qorsho xumada boqol keentay, iyo been isugufaanka shahaadada birtiya laynta ku hantiday isbaabiinta, billadaha haddaad qaaday baryadiiyo ikaalmeeda. hay-adahan ku soo booqday baabacallo hoosmeerka way kugu bahdilayaane, birmadkiiyo guclayntoodu waxiluu ku barayaaye, sahanbaashiraaddoodu waa baraka xeel dheere, ummad yahay bustaha tuura, soo baraarugoo toos, bini'aadan sugiddiisa baryadiiyo barta ay ka kici weyday, baydda ay ka socon weyday, haddaan taabto boogteeda runta kay ku baran weyday, beentana ku nici weyday, baadideeda celin waaye, baylahdeeda jiri waaye, wadeecada ka biin waaye, basanbaas ka rari waaye, meel biyeele furi waaye, ee shicibku buunbuunshay shilkiisana ka bixi weyday, siyaasiga bulshadu eeday, sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha. aqoon-yahan barkumataal ah wax isbiday waxbana biirin, loo dhigay cilmiga bayrta, nuhorsida digrii beena, buug sitoo miidhan, sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha. barbaar hurudo oon toosin, caqligana badh laga haysto, la beddelay garaadkooda, besahoo iswada dhiibay, sida biro sallaameedka hadba buundo lagu dhaafo, nin danlihii ku koro buurta, iyaguna rogtii boodhka rajabeel la sara taagan, sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha.
boqor iyo salaadiintu marbay bili lahaayeen birdada ma lahaayeen baaqa nabadda sideen haddii mawduuc bixin waaye waxa badan ismagacowga kuwa boodhar soo qaatay caana boodho soo laaqday isboqroon bahdii dooran odaynimo birtii dhaafshay soo beledka aan joogno barta laga helaa maaha culimada badhkood maalka si badheedha ugu xaytay culimada badhkood maalka si badheedha ugu xaytay u banbaxay adduun doonka ee barashadii diinta $100 lagu geeyey soo beledka aan joogno barta laga helaa maaha dhakhtar qaali lagu booqdo ninka baahan sii baadha dadka ruux bukooliita isagoon ka bogan eelka baarislee kiniin siiya miskiin beerku kala yaallo bas ahoo darbada hayso haddii 100 loo waayo nafbixiisa dhowraynin sow beledkan aan joogno barta laga helaa maaha ganacsada waqtigu beeray ilaahayna nagu beegay warshad baahi lagu reebo ka binayn arliga hooyo dalkiisii baqsee liiday bugcad iyo ka dhigay suuqa bacda saylad lagu iibsho danyartoo badhkootaano baysteen wax jara haysan sixirfan ku sii biirsha sow beledka aan joogno barta laga helaa maaha waxaan baydka suugaanta kaga baxay bulshaywaano bahda dhagaha maqalkaaga haddaan bixisa kaa awdin dad qabaan wax kuu sheegay basarkiiyo wax aragaaga haddaan khayrka laga baabin kuu soo bandhigay eelka gobonnimada binadeeda iyo biixiyaha tiirsha wadartay ku badisaaye wanaagay ku bilataaye barkhaday ku tarantaaye baritaara guushiinna jidka wacan ku soo baydha boqorkiina tala saarta haddii kale bulshoy heedhe baaxad caydhow marka basarku kaa guuro ee loo banbaxo ceebta nolol heer baktiya taagan idinkoo basbeel jooga beritiya difaaleeya maansadu intaas horta ku egta waan jeclaa inaan sidan si ka ballaaran idinla hadlo waan filayaa xagga hore inuu ka habsaano inaan waqtigiina ilaaliyaa waa ugu weyn iyo qiimaha ugu weyn idin siin lahayd waqti ba ahayd waqtigiina waa ay siiseen sida ay siiseen baan kiina u ilaalinayaa waa sababahaan u soo gaabiyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan xasan dhuxul saalax